waa iska caadi in ummadda ay jecel yihiin inay dalxiisaan ama qof kastaba uu doonayo ama uu ku fikirayo inuu maalin u dalxiiso. hase ahaatee dalxiiska naftigiisa ayaa marmar ku geenaya meelo khatare, waxaana jiro meelo dadka aan loo ogoleyn inay galaan ama naftooda ay khatar ku tahay iyagoo ee dalxiisayaal sidooda. haddana maanta waxaa kusoo qaadanaynaa shanta meel ee adduunka ugu khatarsan ee dadka dalxiisaya ee khatar ku ah naftooda. lambar 5, Toortanga waxay dhacdaa dalka Norway, waana meel aad iyo aad u khatar badan. markaad sidaa u fiiriso waxaad ogaanaysaa inay meeshan tahay meel khatar ah. waxay jirtaa ilaa 800 mitir in lagu socdo ayay qaadanaysa ilaa 10 saacadood. dadka ayaa loogu digaa balse weli way tagaan. waxaa sanadii hore ku geeriyootay gabar Australian waana markii koowaad ee meesha Toortanga laga diiwaan geliyo dhimasho. hase ahaatee meeshan ayaa markasta dadka looga digaa. lambar 4, orodka dibida. tani waa dhacdo sanad kasta ka dhacda dalka Spain iyadoo ilaa iyo 25,000 oo qof usoo daawasho tagaan. 6 dibi ayaa wadada lagu daayaa. 6daas dibi ayaa waxyaabo dhib badan u geysta dad badan iyadoo ilaa 100 qof ay sanad kasta ku dhaawacanto. sida loo bilaabay ilaa hadda waxaa ku dhintay 15 qof. haddaba waxaa dalxiisayaasha lagu digaa inay ka qayb qaataan tartankan. hase ahaatee kuma quus qaataana way aadaan welito. lambar 3, Mahuashan. ma doonaysaa dalxiis khataate ah? kaale kusoo dhow Mahuashan. daqiiqad kuguma qaadanayso inaad fahantid sababta meeshan khatar u tahay. bal fiiri, waa meel yar oo lagu soconayo. lugta ayaa la saarayaa, ayar baan loo soconaya, balse ilaa 100 qof ayaa meeshaas ku turanturaatoo ka dhacday, naftoodana ku weysay. dalxiisayaasha ayaa loogu digaa inay meeshan tagaan. meeshan ayaa ah malagaada soo raadso oo kaalay dhimo. hal mar haddaa lugta la weysidna waa dhaadhacaysayo hoos baa lagaa soo qabanayaa. haddaba u dalxiisti Mahuashan. lambar 2, El Caminito del Rey. waxay ku jirtaa meelaha adduunka ugu khatarta badan. magaceedu waa sida maxaa yeelay waxaa u bixiyay boqorka dalka Spain Alfonso isagoo doonayay inuu ku socdo ilaa iyo hoos. haddaba meeshan ayaa meelaha kamida meelaha adduunka ugu khatarta badan iyadoo dadka Yurubiyaanka ay badanaa u dalxiis tagaan. hase ahaatee qaarkood ma soo noqdaan. meesha la tagto ilaa waa 1 mitir dhinaca lagu soconayo. hase ahaatee waa meel aad iyo aad u dhib badan oo dadka naftooda ku waayaan. ma doonaysaa dalxiis khataate iyada. lambar 1, Death Road. hayaay tani waa waalicas. bal u fiirso, Death Road waa wado ku taalo magaalada ugu yar ee dalka Bolivia. waxay soconaysaa ilaa 69 kilomitir. tani ma ahan daldali ciyaari meel laga soo noqon karo, balse dadka qaar ay ku qasban yihiin inay maraan. balse dadka aysan qusaynin dalxiisayaasha ayaa u dalxiis tago iyagoo rabaan inay meeshaas soo arkaan. hase ahaatee nafaf badan bay meeshaas qabtaa oo ay la tagtay. waana meesha kaliya ee dalxiisayaasha looga digay inay tagaan Bolivia marka ay u daawasho tagaan wadanka quruxdeeda. waxaa loogu digaa inay tagaan Death Road. hase ahaatee way tagaan, lamana arko, dib looma arko.